السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وإذن سلامي دنيا ميل والباكة جوكتان ومهدسنتهين سيدا مر والبقيتا كليسان waxaan ka codsanayaa inaad like share iyo subscribe sameysaan sida la socotiinba maalin walbo isbuuc walbo channelka is anfac barnaamij cusub soo galinaa marka maanta waxaan ku fakarayay inaan ka hadlo hooyooyinka markay umusha yihiin waxa ay dareemaan oo depression camal ah iyo maxay ahayd waxyaabaha keeno iyo maxay ahayd sida loo dareemo iyo waxa laga qaban karo intaas u guda galin maanta waxaan haystaa qof marti ah oo dareemay waxaas oo hooyo ah marka qofkaas idin ku soo dhaweynaya insha Allah oo idin sheegi doono waxaas ay dareentay dadka dhan wada dareemaan dadka qaar ah dareemo dadka badan ayaa waliba dareemo waxaana la dareemaa bisha koowaad la dareemaa badanaa marka babyga dhasho ilaa 12 bilood ee u horeeyo maxay siyaabaha lagu garto ina maxay qabtid symptomska lagu garto ina postnatal depression qabtid waxa way badanaa waxa dareemaysaa xanaaq joogto ah farxad la'aan joogto ah waxyaabaha aad sameyn jirtay oo mar walba ku faraxsaneen waxa dareemaysaa energy-gaaga inuu la hooseeyo inaad mar walba daalan tahay inaad dib ku qabtid inaad seexatid waxa laga yaabaa inaad ilmahaaga yar aad dhashay aadan ma aragtay aad u xiiseyneynin waxa laga yaabaa inaad ma aragtay dadka aad xiriir kala lahayd ama jeclaan jirtay inaad la sheekeysatid inaad xiisahooda kaalmo aad xiiseyneynin waxa laga yaabaa inaad dib ku qabtid inaad wax diiradda saartid oo sii fiirisid waxa laga yaabaa in ma aragtay aad dareentid cabsi fakar oo cabsi ah waxa ku fakaray oo wax cabsi ah ma aragtay xumaan iyo fakar xun iyo wax walba meesha xun aad ka aragtid marka maxaa laga rabaa sidee caawitaan u heli kartaa marka u horeyso waxa weeye in aad kaarta badsatid maxay tahay ilaahayna isku xirtid qasab qof kasta muslim saas uu sameeyaa laakiin waxa laga yaabaa mararka qaar hadaa waxaas dareemaysid inaad iloodid ama aad ka yareysid sidii hore waxaa kaloo muhiim ah inaad maxay ahayd hadii waxa si joogto u sii joogaan aad qof ku kalsoon tahay raadsatid oo la hadashid kadibna hadii waxa ay sii joogaan aad wax ka qaban weysid inaad wareysatid dhakhtarkaaga oo ogaatid ma aragtay waxa kale oo la sameyn karo maxaa markaas laga yaabaa in ma aragtay GB-ga oo ama dhakhtarkaaga oo ku ma aragtay ku gudbiyo qof oo counseling ku siiyo haday sheekadaada yar tahay hadii marka GB waxa laga yaabaa inuu ku gudbiyo counseling dad oo la sheekeysanaysid oo waxa dareemaysid ku dhageysanayo haday weyn tahay oo dib weyn kugu hayaan oo maxay in uu ku clinical depression waxa ku siiyo maxay dad qaar waxay dhahaan ma u sheegay hada u sheegay ilmaha liga qaadanay waxaas kaleeto balse hadii ko waxa ugu horeysa hore in kugu soo sheeg waxa in adkaarna akhrisatid ilaahayna isku xirtid quraankaagana akhrisatid quraanna is saartid hadii waxa sii socdaan aad isleedahay waxa farahan ka sii baxayaan waxa laga yaabaa inay yihiin wax kale oo xagga caafimaadka ka socdo caafimaad ahaan marka sidaas darteed waa muhiim inaad dhakhtar la xiriirtid anigoo wixii oo dhan sii wada sheegin insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa goor dhow gabadhii martida ii ahayd oo hooyo ah marka insha Allah hooyadaas idin taaban doonto waxa guud ee dareentay insha Allah asxaabta soo dhawaada marti waxa ii ah maanta Joy oo channelka is anfac noo joogto insha Allah su'aalan ka weydiin doonaa ee la dareemo markii umusha leeyahay ama laga baxo postnatal depression la dhaho Joy ku soo dhawow channelka is anfac waxaan kugu soo dhaweynayaa gacmo furan walaasha shukrin dagaaya kula hadlayso su'aasha u koowaad aan ku weydiinayo maxay tahay maxaa dareentay sidee u dareentayna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجيء وحالي لها جوي شكر صاحبتي ذا هاي هذه وحاضر يعني هذه بيش سديدات مات كذا هذه لبعتن كذا ما يلها سمية صدق كذا إسكره وحاضر يعني إنا أو أنيجو أو كوشين كجوجو عبصودي منتكريناي مركع عبصودي أنا دان واحد وايي hadalka igu dhagay hadalka markaas igu dhagay
adi waxaa imaaday sayigeygaa imaaday, waxaas i weydiy maxaa kuugu dhacay, indhaha ilin kasoo daadiyey. Kabacdi waa soo baxay qolka jiifkaa soo galay, waa fadhiistay. Adi sayigeyga isoo ag fadhiistay, waxaas i weydiiyey maxaa kuugu dhacay. Waa hadli waaye, hadalkaa igu dhegnaay. Cunuga aan adi siinaayey, radaaca siinaayey cunuga. Sidiyaa maxaa la dhahaa, cunugiyaa ku celcelinaa, cunugaa naaska siinaya waa ku celcelinaa, ma hadli kari, hadalkaa igu dhegnaay, waa ooynaa leeg. Ugu dambeysta waa cuudu bileysa waaye. Ugu dambeysta adi waxaa suubiyey, waa hadlay, maxaa kuugu dhacay, waa cabsoodaa dhahay, hadalka dhan waa iga soo foqi waaye. Kabacdi waxaa dhacday inaa oo marka salaada u istaago aan cabsoodo, oo dabeelaa afka iga galaa salaada marka u istaaga. Salaada si sax ma u tuka kari, adi waa isku dardarsooma. Marka afka kala qaado wax hawaa afka iga galaayo oo wax dhunjinaayo camal, waa cabsoonaa. Habeenkii oo dhan waa cabsoonaa, waagaa igu beriyaa ma hurdaayi. Adi galbihii marka la gaaro dabeel badana isoo galayso oo cabsi, waa cabsoonaa, meelaa jooga ma ogi. Maskaxda dhanaa qaboow ii noqonaysa, halahana i xanuunay maskaxda iyo dhinaca, waxa ka cabsoonaya ma ogi. Ilmaheyga markaa is dhaho diyaar banaanka aad, ilmihii saana uu wareegsanaa galbihii. Galabta marka la gaaro bajiradaas ay qabanayso. Adi ilmaha marka u labista banaanka u ordaa, banaankii marka u ordo dadkiyaa ka cabsoonaa. Waxaa is dhahaa dadkan dhan waxay kugu suubinoy, saana u taaganaa jidko. Waxaa u maleeyaa dadkii telefoon haasta, dadkii socdo waa ku mashquuli jiray dadka. Adi markii ka bacdi waxaa qaadatay muddo 2 sano ee igu qaadatay. Muddo 2 sano ee igu qaadatay. Adi quraana guriga ku shidi jira, habeenkii quraana ku seexi jira, maalintii quraan. Adi jiradii way igu soo noqon jirtay. Isku sidii leh oo marka afka kala qaada. Markaas waxaa u maleeyaa inaa oo dad markino oo geesaha dad oo yani qof wax igu suubinaay iyo waxaas iyo shaki iyo adi guriga dhan ma joogi kari. Galab kasta jiradaas ay qabi jirtay, cabsidaas. Adi ilmaheyga xataa heer waxaa gaaray inaa ka iloobo inaa cunto siiyo. Habeenkii sida usoo kaco subaxdii ilaa habeenkii mar waxaa arki jira anoo taagan jikado 6 saac habeenimo adi 5 saac, waxa suubinaayna ma ogi. Inaa cunto cuno waa iloobay, inaa cunto cuno waa iloobi jiray, inaa ilmaha radaaca siiya mase cunto siiya waa iloobi jiray. Habeen iyo maalin ma seexi jirin. Ugu dambeysta gurigaa ka tagay, xaafad waxaa aaday gabar saaxiibteeda oo noo dhawo, adi 3 saac noo jirta aaday. Markaan aaday, marka xaafadii tagay waa fiicnaaday. Gurigeyga markaa usoo noqdo jiradii way igu soo noqonaysa. Ugu dambeysta quraana is saaray. Quraan markaa is saaray, adi jiradu way igu sii dambeysay. Habeenkii quraana shida jiray ilaa adi subaxdii ilaa habeen quraan shida jiray. Waxaa xasuustaa suurata yaasiin iyo suurata raxmaan iyo suuratal ma xasuusti aashitay oo isku darsan. Waxaa xasuustaa quraanka oo ku fiicnaada inas quraankaas yahay habeenka ugu horeysay. Sida habeenkii u shidi waaga mahad waxaa ilaahay iska leh inaa oo maanta sayigeyga i caawi jiray markaa ilmaha aan cunto sii waayey. Asigaa i caawi jira, ilmaha cunto sii jira. Ilaahay kheyr a siiya, nin fiican aan haastaa oo i caawiya markasto, ilmihiisa jecel. Saasaan ku badbaaday alxamdulilah. Haddana ilaahay waa iga caafimaad waa i siiyey. Quraana is saaray, quraana sida iskugu wadi jirada waa iga baaba'day alxamdulilah. marka maxaa kula talin lahayd walaalaha kale oo hadda maraya xaaladaas adi soo marto kasoo gudubtay inay sameeyaan? Wallahi waxaa ku talin lahaa haday jiradaas qabato inay quraan shitaano gurigooda habeen iyo maalin, ee quraan is saaraano, inay sheekhiyo u wacdaano, quraan is saaraano aftal lahaay. maxaa yeelay jiro jirto oo yani oo bini aadanku u adkeysan karin
heer waxaa gaaraysaa inaa waalantiida isku maleynaysaa. waxay u baahan tahay sabar badan. qof cabsoonayaa tahay, waxaa ka cabsoonaysidna ma taqaanid. dadka dhanna waa ka cabsoonay, jidka maraayo qof kasta oo aragtid waa ka cabsoonaysaa. marka qofkii jiradaas isku arko wuxuu u baahan yahay quraan saar bes, wax kale ma u baahno. qof waalan ma ahan, qof oo stress ku dhacay le waaye. aliska ogaado. saasaa dadka kuwaani lahay. assalaamu calaykum.